ninka oo habartay qabo walaalkiisa dhif u sameeyay qaska iyo xanuuna dhiigna oo socodkana oo dhibaa ilaa hata waa kaltuun balse magaceeda saxda ma aha. waa 9 sano jir waxaa kufsaday hooyadeed nin ay u dhaxdo walaalkii sida ay noo sheegeen xubno ka mid ah qoyska gabadhan iyo iyadaba. sidee arrintan ku dhacday maxaase dhacay kufsiga kadib? waa tan kaltuun oo sharaxaysa. isbitaalka markay geesi markan butaawoon cudbiyoon shaqada naag kale ii geesi waxay tahay gabadha farxumaysantahay hay'adii habeenka taas kale seexi jirtay. kadib ma ku imaaday ninkii haddana mar kale? ninka uu soo noqay dibacteen hooyadii arintu sheegay waday cudbiyoon markay u dhamaadeen haddana way waday. hooyo ninka ma la hadashay iyada markaa u sheegtay kadib? mayo كيوع شيء مرهالشوا مركي وتبعتيني وهذين بدنا وحنوك وشيء مركزيتي وفعنا وحير فينا مركز أول هتاكلي. واي هاي مركا حد كورن حالة على عفماد واسية محاضر انت هذا قسكي حنونا إيجنو سعود كانوا دوا إلى هتا. gabadhan markii hore waxay ku soo kortay guriga uu ku nool yahay aabaheed oo iyadoo yar ayay kala tageen aabihii dhalay iyo hooyadeed, laakiin 9 sano kadib ayay si qarsoodi ah uga qaadatay hooygii ay ku nooleed. haddaba waa kan aabaha dhalay gabadhan oo ka hadlaya sida looga qaatay iyo waxa xigay. على أكبر حجوا شمس أبيض و قودي معنا أبيض أنا قري جونا قودي حاسكي عمره قوي يا قري يا كحد هو يدي معنا قود أي هو يدي بدي جرتي جانس كشيء قودي سدي معنا قودي يقعدي أنا أقول مقاسم وعود يا قودي ميلان كشيء هواي وعود حافظي وعوضي حافظي يدودي معنا راتكي مع وحو قال أنا حاسك أنا هور أفرق إني قبلي معنا أي قادتي العقل وحي قادة صدق دور قبلي هذا لو كان على لكن جمعة كله كان قبلي جورجي ما هبين 6 ساعة أو وحافظي أو على وكان جورجيس قبلي قعدت أقصقبت قبلي مقصبت قبلي وين يجبستي ورمعك ولا أنا مع أبو حيت معنا أنا يسحب عليه قال لي معنا وكاس ساس وجو أنت يا معنا كنت بقول على حسب لو حتى إن عندنا تلفون ولا صدر ولا عيش جلي لا بنايا كقبسينا حبسين كورينا ولا عيش جلي. arrinta la isweydiinayo ayaa ah sida lagu ogaaday in gabadhan kufsi loo geystay iyo goorta la ogaaday iyo in ay la socodsiiyeen hay'adaha dawladda. waxaa su'aalahaasi hordhigay eedada gabadhan la kufsaday eedu ah wiilka dhalay waxa maxaa la dhahay walaalkay waaye maxaa la dhahay sii sheegay iska abuska hooyanahay gabadha hooyada soo korisay annaga nagu soo dhax kortay gabar banaan lagu dayac maaha gabar yaan aan dib u soo marna waaye 9 bilood ayada ahaa nolol tuuray gabadhii waxay anaga heesano oo 9 bilood heesano maalmaha kamid ah waxa u maata hooyadeed waa dhashay hooyadeed baa way wadatay hadday wadatay gabadhii wixii telefoon loo diray gabadhii telefoonkeeda wadasana aabihii gabadha la loo diray waa loo diray markii loo diray adiga waa loo wacay sheeko waxa dhacday gabadhii in lacag lagu qaatay dismadeedii xatee gabadhii markii noo la soo deeyo guriga la keenay gabadhii oo kufsana waxa meeshii aalna gabadhii noo imaatay waxay leedahay qaska ay xanuunay gabadhii dhiiga ka socdo ma soco karto saana markaas waxaan dhahay hooyo gabadhan saana sheego saweena yartay ugu waa la wada gabadh umar salgay gabadhii macalin qaarkii wixii dhan eber noqotay waa baxnay xamar jajab 4 bari uu noqonay maalinkii shanaad baliisaan la daba dhigay staal waxa la geeyay Madiino waxay cadeysay gabartii inuu tarankeedii dhaawac yahay oo yani dhowr mar la isticmaalay oo gabadhii waxba meesha aalin maxkamad saldhiga xamar jajab meeshii cadaalad aan ka sugeen waxa uu tiknay adigi oo gabarta dhal oo sargaal ah oo dhahayo gabadhii oo yani gabadha dhashay aabaheedii oo sargaal ah oo dhahayo uu tiknay yani gabadh ilmahan oo dhashay aabaheed oo sargaal oo nin la yaqaan ah oo dhahayo yani aniga waa ceebeysanahay marah leew daboolo kiiska dhan ha laga soo afjaro. idinkana maxaad u tagtay meesha? anaga cadaalada u tagna ii dacwo
meesha cadaalad ka sugeen waxaa meesha naga qabad in aniga lee xiro oo lii cagjugleeyo oo markii lii xiro kadibna walaalkee la dhaho haddii walaasha u baahan tahay dacwadan ka noqo haddaa ka noqo weysan wax dacwo lagu qabahay mal walaashaan dib daba muu arkaysid hadda waxaa rabnaa cadaaladii gabarta wax dhan way noo diideen xoogay noo sheegteen isbitaal madiina bahashii laga soo qaaday ayagaa haaya xamar jajaba ugu soo takanay haa oo rafeetadii oo isbitaal madiina nagala soo siiyey daawooyinkeedana wax kuwaana xatee waxaa qaadanaa saldhiga xamar jajab wax kaasaa daawooyinkeeda ninkii yaqaanabo qaar hadda waa ku socdaa intaasoo keliya u hirta ninkii akhriskeeda yaqaana kolleed waa dareemi karaa ehelka gabadhan ayaa ugu dambeyn dalbanaya in cadaalad ay helaan gabadhan ayaa hadda wajahaysa xaalad adag iyo dhibaato ka soo gaartay kufsiga loo geystay waxaana ay u baahan tahay gargaar caafimaad